iyadoo dagaalka ka socda gobolka bariga dhexe maantay uu marayo maalintii 28aad isla markaasna ay muuqato cabsi weyn oo dagaalkan in waji kale uu yeesho oo weliba xitaa ay ku lug yeeshaan quwado kale oo sababo nuclear in la isku isticmaalo ama dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa dhinaca kale haddana waxaa socda qorshayaal lagu doonayo in dagaalka lagu joojiyo xalay barnaamijka qubanaha waxaan idinkugu soo gudbinay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ilaa iyo 6 bisha soo socota ee Abriil uu hakiyay qorshe ballaaran oo doonay inuu ku weeraro xarumaha tamarta laga dhaliyo iyo warshadaha waaweyn ee korontada ee waddanka Iiraan wuxuu yiri Iiraaniyiinta ayaa isoo wacay oo waxay iga codsadeen tadaburi inaan dib u dhigo duqeynta kadibna 3 beri aan ku daray isla markiiba markii xal barnaamij ka baxnay warba soo dhacay Iiraan mas'uul siro ka tirsan ayaa waxa uu yiri madaxweynaha Mareykanka asaga isla hadlay anagu maana la hadlin mana aynan weydiisan waqti dheeraad ah waxaan loo soo gudbiyay hindise ka kooban 15 qodob annaguna waxaan gudbinay shuruudaheena dagaalka aan ku joojin karno laakiin asaga haduu isla hadlay asaga la weydiiyay anaga lama hadlin dhinaca kale Iiraan iyo Xisbullah ayaa duqeymo culus waxay ku wadaan Israa'iil dhanka Xisbullah xalay aad baan uga waranay waliba saakay sidoo kale weeraro culus ay xalay saqdiga dhexe ilaa iyo xilligan ay wadaan Xisbullah waxaan ku hormarnaa dhanka Israa'iil halkaasi oo habeennimadii xalay gaar ahaan galikii dambe laga maqlay seeriga diinta ka bixaya deegaano kala duwan warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in la maqlay seeriga diinta ka bixaya gataalada kaas oo ka yeeray deegaano ay ka mid yihiin beer shacba gobolka Naqab iyo meelo kale oo ku yaala koonfurta Israa'iil arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii gantaalaha hawada ay soo galeen dhanka waqooyiga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa laga soo warinayaa aaga kala duwan gaar ahaan gobolka Jililta iyo waliba deegaanka la yiraahdo Al-Malikiya in laga maqlay seeriga diinta ka bixaya gataalada arrintan ayaa telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay waxa uu ku sheegay inay ka dambeysay kadib markii gantaalo iyo diyaarado drone ah laga soo riday dhanka waddankaasi Lebanon way haddaba iyadoo xaaladda halkaas marayso waxaa soo hadlay hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil iyo ra'iisul wasaarihii hore xalay intii la socotay barnaamijka qubanaha waxaan idin soo gudbinay taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir oo ka qayb galayay shir u lahaa golaha wasiirada ayaa waxa laga duubay cod isagoo cabaadaya oo leh ciidanka waxay ku socdaan burbur wargeyska iyo dacoodka xaranood ayaa soo daayay sidoo kale warbaahinta leerada ay 24 Israa'iil laga leeyahay ayaa soo daysay laakiin warkan warbaahintii la baaqaadatay wuxuu leeyahay xaalad adag ay ciidanku ku sugan yihiin burburna waa ku dhownaa barnaamijkaas haddii aan daawan barnaamijka markaa dhamaysato dib u daawo barnaamijkii xalay ee qubanaha macluumaad fara badan baa ku jira haddaba waxa koo isna xalay hadlay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Naftali Bennett welibana si adag ay wax u qirayaan Israa'iil dagaalkan ay ku guuleysaneen iska badaa dagaalka Iiraan wuxuu leeyahay Gaza oo dagaal ayna ku wadnay laba sano 30,000 oo ciidan ayaa imika joogu yiri waxaas ay leedahay intaan idin soo gudbin warbixintiisa iyo waxa uu yiri horta aynu dhageysanno hadalkiisii isagoo ka hadlaya telefishin Israa'iil laga leeyahay כרגע מדינת ישראל או ממשלת נתניהו לא יודעת לנצח בשום מקום, לא בעזה, לא בלבנון, בשום מקום לא מנצחים. הכריזו על ניצחון בעזה, יש היום 30,000 מחבלים בעזה, נוחסאיות. בלבנון הם הכריזו שהשגנו את חיזבאללה לאחור וכל ההצהרות הבומבסטיות, בינתיים חיזבאללה Naftali Bennett ayaa isagoo la hadlayay mid ka mid ah telefishinada ku yaala gudaha Israa'iil waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee Israa'iil ay ku sugan tahay wuxuuna yiri waxaynu wajahaynaa guuldarro dagaal isagoo sheegaya in xukuumadda hadda jirta ee hogaamiyo Benjamin Netanyahu aysan awoodin inay guul dagaal gaarto wuxuu xusay in Israa'iil aysan ku guuleysan dagaaladii Gaza iyo Lebanon isla markaasna aysan jirin
meel ay ku guulaysanayso wuxuuna aad u dhaleelay xukuumadda Netanyahu oo uu tilmaamayo inaysan awood u lahayn in ay dagaalka ku guulaysato xitaa wuxuu yiri Gaza oo intaas dagaal uu kaga jirnay ayaa lagu guulaysan oo guul beena ayaa lagu dhawaaqay ayuu yiri arrintu intaas kuma ekayn sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa isna si kulul waxa uga digay xaaladda amni ee Israa'iil isagoo sheegaya in Israa'iil ay ku sii siqayso masiibo amni oo ka dhalan karta ciidamo yaran haysata isla markaasna wuxuu ku eedeeyay xukuumadda inay ciidanka ku riixayso xaalad burbur ku dhow Lapid oo la hadlayay telefishin Israa'iil laga leeyahay ayaa wuxuu yiri ciidamada Israa'iil waxay gaareen heerkii ugu sarreeyay ee awoodooda iyo xitaa ka badan xukuumaddu waxay ogolaanaysaa buu yiri ciidanka inuu kala daato gaar ahaan marka la eego goobaha dagaalka wuxuu sidoo kale dib u xusuusiyay digniintii oo horey u jeediyay taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir Lapid ayaa waxa intaa ku daray in xukuumadda ciidanka ay gelisay dagaal ka socda dhowr jiha iyadoo aan lahayn istiraatiijiyad cad qalab ku filan iyo tiro askar oo ku filan Lapid ayaa sidoo kale waxa ku baaqay in loo baahan yahay kooxaha diinta in lagu soo daro ciidamada maadaama markii hore laga dhaafayo waxaana uu xusay in ciidanku u baahan yahay askar dheeraad ah si ay u fuliyaan hawlihiisa Yair Lapid hogaamiyaha mucaaradka ayaa waxa intaa ku daray in dawladdu ay ciidanka gelisay dagaal ka socda dhowr jiho wuxuuna yiri dagaalkan ciidanku kuma filna arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo taliyaha ciidanka Israa'iil Eyal Zamir uu sheegay inuu ciidanka qarka u saaran yahay burbur maadaama aysan jirin buu yiri askar kayda oo loo yeero wuxuuna tilmaamay in mararka qaarkood ay muuqanaysa buu yiri askarta inay ka cabanayaan daal aad u fara badan waa saddex mas'uul oo sarsare warkan uu ka imaanaya Naftali Bennett ra'iisul wasaare soo noqday waliba hadda waa ragga ugu cadcad hadii ra'iisul wasaare doorasho ay dhacdo ra'iisul wasaare la magacaabayo ama ra'iisul wasaare la dooranayo Yair Lapid isaga qudhiisa ra'iisul wasaare soo noqday waa ragga ugu cadcad mucaaradka Eyal Zamirna waa taliyihii ciidanka xaaladdu markay ku adagtahay ayaa leeyahay Israa'iil waaya saas ay tahay dagaal culus ayay ku jirtaa aynu eegna Xisbullah iyo weerarada ugu dambeeyay ururka Xisbullah ee reer Lebanon ayaa waxa uu ka warbixiyay weerar culus oo ka dhan ah Israa'iil oo ay fuliyeen saacadihii la soo dhaafay Xisbullah ayaa waxay sheegtay in goobo badan oo kamid ah koonfurta Lebanon ay ku beegsadeen ciidamada Israa'iiliyiinta warku waxa inta uu ku darayaa in Xisbullah ay sheegtay in weerar ku qaaday ciidamo Israa'iiliyiin ah oo ku sugnaa deegaanka Shitula waxaana ay adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaal lahayn sidoo kale waxay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen goobo ciidamada Israa'iil iskugu soo urureen oo ku yaala magaalada Khantara ee koonfurta Lebanon warar kale ayaa waxay intaa ku dareen in sidoo kale Xisbullah ay weerartay deegaanka liirada Elon iyagoo adeegsanaya diyaarado drone ah oo toos ah dhinaca kale Xisbullah waxay sheegtay in markii saddexaad madaafiic ay ku garaacday goobo ay ku sugnaayeen ciidamo Israa'iiliyiin ah oo ku yaala deegaanka Al-Malakiya isla markaasna madaafiic kale ay ku beegsadeen ciidamo ku sugan aagga Khiyam war kale oo ka soo baxay Xisbullah ayaa waxay ku sheegeen in mar kale gantaalo ay ku garaaceen magaalada Nakhura iyagoo sidoo kale sheegaya in ay gubeen taangi ciidanka Israa'iil ay leeyihiin waxay kaloo sheegeen in garoonka diyaaradaha gaar ahaan mid diyaaradaha qumaatiga ay ku kacaan oo ku yaala magaalada liirada Taiba ay beegsadeen ururka reer Lebanon ayaa waxay tilmaameen in gantaal ay ku dhufteen taangi ku sugana buuraha muhasibaat iyo sidoo kale Khantara ee koonfurta Lebanon iyagoo intaa ku daray in gantaal ay ku rideen dhanka waqooyiga Israa'iil gaar ahaan Nahariya iyo Kirishimona waxayna tilmaameen in arrintaasi ay ahayd yoolasha dagaalka ee ugu dambeeya Xisbullah ayaa waxay kaloo tilmaamayaan inay sii xoojin doonaan weerarada ay wadaan arrintu markaas ay maraysaa dhinaca kale Israa'iil waxa lagu dhawaaqay inay iskaga baxday shirkadda shidaalka baarta ama soo saartay Talyaaniga laga leeyahay ee liirada Eni arrintan waxa lagu macnaynay in la xiriirto dagaalka shirkaddan marka waxay tiri hawshan ma sii wadi karno way ka baxday shirkadaasi waxaan u gudbaynaa goordhow Mareykanka saddexdii qof ka mid wuxuu aaminsan yahay dagaalkii saddexaad ee adduunka in la geliyo iyo waliba yawmal qiyaamihii Faransiiska oo isna diyaarinaya qorshe lagu sameeyo ciidamo isku dhafan oo la wareega amniga Mareykanka Hormuz laakiin arrintaasi Iiraan ma cuntumaysa intaan u gudbin wararkaasi iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayisiina
haddii aad degan tahay dalka UK oo aad doonaysa inaad lacag dirto waxaan ku hayaa fursad dahabi ah si fudud ula soo deg abka Somrimit adigoo isticmaalaya taleefankaaga tabletkaaga ama kombiyuutarkaaga Somrimit oo ah xawaalada ugu raqiisan ee lacag dirista waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada hadda kala soo deg abka Somrimit Google Play ama App Store-ka Somrimit amaano iyo adeeg hufan ku soo dhawow qaari online qarni hore waxaa jiray barashada quraanka qofku uu u dhaqaaqo dugsiyada qiraa'ada hadda waa qaab online ah qaari online waxa uu bixiyaa barnaamij dhammaystiran oo ay dhigayaan macallimiin leh in ka badan khibrad 5 sano ah oo ay wax barayeen carruurta ku nool dibadda tiyoo loo adeegsanayo hab waxbarasho oo ku habboon deegaanka reer galbeedka waxaana uu bixiyaa tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah iyo casharro waxbarasho oo bilaash ah haddaba qabso tijaabadaada bilaashka adigoo la xiriiraya WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ama maantaba ka diiwaangeli ilmahaaga qaari online soo dhawaada markale daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan jimcaha toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnow HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag weerarkii aynu ka hadlaynay iyo seeriga digniinta ka bixiya gantaalada oo xalay laga maqlay iyo weeraradii dhacay ciidamada Iiraan ayaa goor dambe xalay waxay soo saareen war ay ku sheegayaan inay qaadeen mowjad kale oo weerar ah mowjadan 84 ee howlgalka ballanqaadka dhabta dufcadda afraad ayaa waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen deegaano ku yaal Israa'iil iyagoo sheegaya in gantaaladan ay beegsadeen dhammaanba goobihii loogu talagalay hagaag waxay ku soo kordhay arrimahaas iyo qasaaraha ka dhasha gantaaladan Iiraan xalay ay ku weerartay iyo saakay waa berigii dhanka Israa'iil waynu arki doonaa hagaag xagga Mareykanka aynu eegno Mareykanka waxa leeyahay saddexdii qof ka mid ah wuxuu leeyahay dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa dhacaya wariba arrimo diimeed bay xiganayaan waxay kula leeyihiin arrintan waxay dhalin kartaa qiyaamihii inuu dilaaco haddaba warbixin amurahan ay ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdi Fataax Mawlid Xaaji Cabdi daraasad dhawaan laga sameeyay gudaha dalka Mareykanka oo lagu daabacay journalka Journal of Personality and Social Psychology ayaa soo jeedinaysa in 3 meelood meel dadka Mareykanka ay aaminsan yihiin in maalintii qiyaamaha ay soo dhowdahay isla markaana ay dhici karto ka hor intaysan helin fursad ay kula baxaan lacagahooda howlgabka John McGillian oo ah qoraan Mareykan ah oo arrimahan warbixin ka qoray ayaa sheegay in hadalka Mareykanka ee ku saabsan qiyaamaha uusan ku koobnayn kaniisadaha oo kaliya iyo qayb gaar ah oo masiixiyiin ah balse xaaladdu way isbedeshay iyadoo ereyga dagaalka adduunka ee saddexaad uu noqday mid ka mid ah waxyaabaha ugu sareeya ee dareenka dadka taasoo ka dambeysay weerarka Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka ah Iiraan iyo dilka hogaamiyaha sare sida ay sheegtay daraasaddu in ka badan 100 milyan oo Mareykan ah ayaa saadaalinaya dhamaadka dunida inta ay nool yihiin saadaashaasna waxay saameynaysaa aragtidooda ku aadan isbeddelka cimilada dagaalka nuclearka burburka dhaqaalaha iyo sirdoonka macmalka ah ama AI waxa loo yaqaan nidaamka howlgalka nafsaaniga ah maqaal John McGillian uu ku qoray warsidaha The Hill wuxuu sharaxay in aaminsanaanta dhamaadka dunida aysan hadda ahayn oo kaliya niyadjab ama walwal ku aadan arrimo diimeed balse ay noqotay nidaam howlgal nafsaani ah oo madax bannaan gaar ahaan kuwa aaminsan in bani aadamku ay yihiin kuwa sababi doona dhamaadka dunida waa sida uu aaminsan yahay